Soomaaliya waxa ay wajahaysaa xaalad abaar oo aad u daran kadib xilli roobaadyo isdaba joog ah oo ka hooseeyay heerkii caadiga ahaa kaasi oo ka daayay qaybo Soomaaliya ka mid ah. Sanadkii hadda dhammaaday ee 2025 dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo qaran kadib markii ay abaartu ku faaftay gobollada waqooyiga, bartamaha iyo koonfurta dalka. qiyaastii 2.5 milyan oo qof ayaa hadda ku nool deegaanada ay abaartu saameysay, halka 4.4 milyan oo qof la saadaalinayo in ay wajihi doonaan cunno yari daran. Xaaladdu si gaar ah ayay uga sii dartay Puntland, halkaasoo ku dhowaad 1 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Puntland waxa ay ka mid tahay deegaanada Soomaaliya ee sida aadka u daran ee u saameysay abaartu kadib xilli roobaadyo isdaba joog oo si weyn uga hooseeyay heerkii caadiga ahaa. Roob la'aanta iyo heerkulka aadka u sarreeya aan caadiga ahayn ayaa sababay in ceelal badan ay hoos u dhacaan amaba gabi ahaanba ay engegaan, halka barkado iyo balliyo biyo xireenna ahina ay iyaguna dhammaadeen. qiyaastii 1 milyan oo qof oo ku nool Puntland ayaa hadda u baahan gargaar degdeg ah, ayagoo ay u badan yihiin reer guuraa, beeraley, haween, caruur iyo waayeel, kuwaasoo deegaano badan ku barakacay. Abaartu waxa ay si toos ah u saameysay nolol maalmeedka xoolo dhaqatada, iyada oo ay kumanaan neef ay u dhinteen haraad iyo daaq la'aan, taasi oo sii xoojisay saboolnimada iyo barakaca deegaanada Puntland. Macadka cilmi baarista ee IRIS oo fadhigiisu yahay Puntland ayaa safar kormeer waxa uu ku maray gobollo ka tirsan Puntland isagoo uu kuurgelayay xaaladda abaarta iyo sida ay dadka u saameysay. Si cad ayaa loo arki karaa natiijooyinka ka dhalatay isbeddelka cimilada iyo roobabkii xaddigooda la filayay oo hoos u dhacay. Dadkan haddii aysan helin taageero degdeg ah iyo ka jawaabidda baahiyahooda, waxaa la saadaalinayaa in xaalku sidan ka darnaan doono.